وصحبه وسلم أنا ku hadlaya afka gudoosaadka arrimaha bulshada waxaan marka hore soo dhaweynayaa baaqi xalay ay soo saartay xukuumadda Soomaaliland ee ku saabsan xabad joojinta waana mid loo baahnaa markii horena mana ahayn in dalka dagaal iyo dhibka inta la geliyo waxaan soo dhaweynayaa in iyaguna dhinacii kale iyaguna ay qaateen runtii waxa la saacanood ka dhacay wax qurux badan ma ahayn wax wanaagsan ma ahayn waxaan aaminsanaa in xabad iyo dagaal laga baaqsan kareeyay labada dhinacba laga baaqsan kareeyay runtiina waxaan jeclahay inaan halkan fariin uga diro hay'adda ka hortagga aafooyinka qaranka kaydka raashinka haysa waxaan leeyahay hay'adaasi waa inay si degdeg ah oo gurmad leh ay u gaarsiisaa raashinka waddanka yaalla ee kaydka ku jira maadaama dad lagu qiyaasay 80,000 oo qof in ku dhawi ay ka barakaceen dadkaasina ay ku nool yihiin maanta la saacanood iyo hareeraheeda iyo in garoowe aaday laakiin dadka badankiisu ay inta guumaysi iyo cadeeyo iyo la saacanood hareeraheeda ay ku hareeraysan yihiin waxaan kaloo halkan fariin rabaa inaan uga diro hay'adaha UN-ka iyo international NGOs-ka oo aan leeyahay si degdeg ah loola gaaro dadkaasi waxaan kaloo rabaa inaan uga diro hay'adda barakacayaasha qaranka oo iyaduna maadaama barakac badan oo baahsanay uu waddanka ka dhacay inay iyaduna ay gurmad la gaaraan inta ka bacdi waxaan jeclahay inaan mid u sheego dadka maxay toleen reer Soomaaliland ee labada dhinacba ah ee baraha bulshada isugu gudbinaya waxyaabaha caadifadaysan ee aan wanaagsanayn runtii anigu aad baan uga xumahay maadaama aan gobolka Sool ka soo jeedo gobol ahaan aan ku matalo xilka aan hayo gobolka Sool dhibaatada ka dhacday waan ka xunahay mana wanaagsana aqlina ma gelayso in dadka la yiraahdo xabadna waa la idin la dhacayaa Soomaalilandna waa ka tirsantiin wax soconaya maaha dadka caadiga ee wax magaratada ah ee inta badan aaminsan in la sacaanoodna iyo gobolkaasi dhulkiisuna ay Soomaaliland ka mid yihiin dadkiisuna aanay ahayn oo mid xaaraana baan leeyahay war haliga daaya baan leeyahay waxaan mar kale ugu baaqayaa labada dhinacba inay xabad joojinta u hoggaansamaan oo nabad baa wax lagu yahay cid walba ay nabadda qaadato oo dadka ku dhimanaya meeshaasi macna daray u dhimanayaan sabab ay u dhimanayaan anigu ma garanayo hadday ciidanka qaranka tahay iyo hadday dadka kaleba tahayba midna aan waan aaminsanahay oo waliba aan dawladda aan u soo jeedinay waxa weeye dadka reer Laascaanood dad xabad lagaga adkaan karaya maaha walbaahantana dad xabad lagaga adkaan karaya maaha war aqligu hayno shaqeeyo baan leeyahay madaxweynuhu waana ka xumahay ereygii maalintii dhaweedii uu yidhi waddanka argagixisa joogto waa penta baan leeyahay madaxweyne argagixisa ma joogto dadka reer Soolna argagixisa maaha waa dadkaagii oo adigu aad gabtay haddii argagixisa yihiin maxaad qabanaysaa adigu argagixisada ugu ilaalin weydaa adigu meesha adigu maxaad qabanaysaa madaxweyne gobolkan Soomaaliland gobolkan Sool adigu miyada madaxweyne ka ahayn maxaad adigu argagixisada ugu ilaalin weyday waa ka xumahay dadkana waxaan leeyahay xaal baan ka siinaa arrintaasi arrinaan isaga la qabnana maaha in dadka yagi qayb ka mid ah lagu sheego argagixisana wax soconaysana maaha waana ta halkaas ii geysay baasha ee sii fogeysay madaxweyne adiga iyo xukuumaddaadu ilaahay wuxuu idinka habaaray hadalka maalin kastood hadlaysaan waxaad ku sii hadashaan wax ummadda kala fogeynaya fadlan haddii aadan hadal fiican ku hadlaynin dad fiican oo hadalka si wanaagsan kuuga hadla samaysa madaxweyne ugu dambayn waxaan dadka reer Sool u soo jeedinayaa walaal dadkaygii baa tihiin dhibaatada ay ku dhacday waa idinka xunnahay dhibaatada ay ku dhacday waa idinka xunnahay runtii waana hagaagi doontaa waana la heshiin doonaa ugu dambayn waxaan hadalkayga mar labaad ku celinayaa hay'adaha UN-ka iyo international NGOs-ku inay si degdeg ah ula gaaraan maxay tahay magaalada Laascaanood iyo hareeraheeda oo raashin iyo biyo iyo wax kasto dad barakacayaal ay u baahan yihiin ay u geeyaan assalaamu calaykum ciidanka BSF baa dheeraada bay xukuumaddu xogo sirdoon bay sheegeen iyo maxay xogo kale inay ku heleen waxaas oo waxba kama jiraan baad leedahay waxba kama jiraan ana ku sheegaya waxa alla wax ka jira ma jiraan hadday argagixis jirto muxuu isagu uga qaban waayay su'aasha isweydiinta waxa weeye waddanku ciidan buu leeyahay sirdoon buu leeyahay shaqo buu leeyahay maxay iyagu uga qaban waayeen wax inta shaqadiisa dayacay inuu dadkii ku sheegay waa argagixiso waa qaladka labaad la sameeyay waxa weeye nimankan garaadada ah nin walba 200 oo askari buu watay taliyaha ciidanka qaranku wakiilaha waxa soo dhaweynaya ciidamadii qaranka way dadka soo dhaweynaya ma ciidankii qaranka ee mushaharka qaadanayay argagixiso noqday dadka inta la joogo in la caayamaha waa ku fashilanteen meesha dagaalkaana si degdeg ah u joojiya ummadda reer Soolna dambi baad ka gashay cafis weydiista ma leeyahay hal su'aal aan ku weydiiyo مسؤولية مدحونا قاضية. أوكي حلي بان هل سؤال
هذا الواحد آذو قلنا سنة دليش عاد مدحوينها وجهدنا وتكون كينة عرب هذيك اللي مدحوينها محد سوق لابسنتي وحبس سوق لابسي وما طنطا قرنكم سوق لابسنا wax shakhsi oo naga dhaxay ma jiraan baano anu waligeena jaar baan ahay baano laakiin de aniga waxa la ii soo doortay inaan ummadda dadka codkooda aan meel dheer gaarin inaan u sheego inaan codkooda kor u qaado anigu ayaa la ii soo doortay anu xildhibaan baan ahay wasiir ma yihid xor baanan ahay anigu mana ihi ragga anigu maalin walba xafiisyada dawladda dawrsiga u tagay shacabka la hortaagan ummadan inaan anigu u shaqeeyo halkan u imaano kuntana waan sheegayaa haddii kurkaa la jarayo baan ku laakiin xildhibaan saameyn ma kugu keeni kartaa dhaliishanad carabka aad ugu adkeynaysa ee madaxweynaha u jeedinaysa maaniga haddaan baqayo xildhibaannimo ma soo doonteen baanu haddaan baqayo xildhibaannimo ma soo doonteen baanu nin mushaar dawladeed u ooyeyna ma yihiin inuu madaxweynuhu xukuman anigu miyi accountable anigu isagu miyi anu golahan aan u shaqeeyo anigu golahana qaranku u matalaa qarankaana anigu u shaqeeyo anigu isaga uma shaqeeyo ee wada shaqeyn baa naga dhaxaysay dadka anigu isaga u shaqeeyo miyi